الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آدي بن السلام يا ولعلى قيمها بدل سؤال تيبي برنامج كان إنك كقب قاتان إن شاء الله تعالى وحنشان هنا القضاء دورة كهضلة أدي لهي وقلاده قضاء كوادن دون هنا كهضلة وحوي أنت أنا القضاء بدأ أنا نقلين دورة نعمة وبركة وحكوسها بسنية هي كيف تحسن العلاقات الزوجية. sidee baan u hagaajin karnaa cilaaqaadka iyo xiriirada lamaanayaasha sidee baan u hagaajin karnaa sidee buu ninku xaaskiisa xiriirka kala dhaxeeyo u hagaajin karaa sidee buu gabadhu xiriirka kala dhaxeeya ninkeeda ay u hagaajin kartaa waxaan muddo dheer bayimka ka hadlaynay barbaarinta caruurta si barbaarintii loo helo cidda caruurta barbaarinaysa waa aabe sidoo kale waxa barbaarinaya caruurtii hooyo haddii aabihii iyo hooyadii xiriir wanaagsan aan labadooda ka dhaxaynin caruur ma barbaarin karaan waxuma qaban karaan jiil ma soo kordhin karaan sida awgeed dacaayadka faafay ee in badan oo inaga naga mid aan ku raaxaysana waxa kamid ah dacaayad kasta oo kala fogeynaysa lamaanaha yaani dacaayad kasta oo ninkana gaar u xidhaysa gabadhana gaar u xidhaysa waan dhiirigelina inqaarkiisa wadaadada qaarkood oo ereyada qaarkood ku celcelinaya مثلا ereyada wadaadada qaarkood ku celceliyaan dadkuna ay views fara badan laga helo oo dadku aad u taageeraan waxa kamid ah gabadha waajib kuma aha inay ninkeeda u shaqeyso gabadha waajib kuma aha ninkeeda inay cunto soo kariso gabadha waajib kuma aha inay ninkeeda sariirta iyo guriga u diyaariso hadduu ku dhaladay kaali hiblaaye waxa ay soo qabay xoran kartaa wararada shaqaalaha u dirsadee anigu adiga kuma shaqeeyay ereyada noocaasa dacaayadka noocaasa ay waxay helaan buunbuunin aad u badan taas oo aad sida xaqiiqadu ay tahay mid ka hor imanaysa xiriirka guriga bal waxaad suuraysataa adiga oo nin ah oo soo shaqeynaya maanta oo dhan oo gurigaagii ka maqnaa bal saacadihii ugu dambeeyay aad gurigaagii timid adiga oo daalan maanta oo dhan soo shaqeynaya cid aad u shaqeynaysa aad u daalisay inay tahay xaaskaaga iyo caruurtaada bal waxaad suuraysataa gabadha adiga aad u timaad ku tiri xabiibtii waxaan u baahanahay qadadii maaday sheegtay dowladda qadada karso kijada ay taalaay ordo de doono ama ordo karsaado me wallahi waan soo daalo ma karin karo maanta oo dhan ma shaqeynay dad soo daashay ordo shaaqiyada u dirso ina shaqaalaha gurigeena joogtay deeyada ordo u dirso caybta koobka biyaha ay soo dar mayaani xaqiigu ma lihiin koob biyo ku soo daro bal gurigaasi sidee buu jiraya qoraalada noocaas iyo maqaalaadka noocaas waxay helaan views aad u fara badan bay helaan waxaana helaan dhiirigelin aad u fara badan oo kaga timaada xagga bulshada iyadoo aad moodo dumarkiina in laga dhaadhiciyo ragga ka fogaada oo dumarka wax koonaya ragun baa laga hadlaya ragun baa la hadalhaya nin iyo xuquuqdii baa laga hadlaya nin iyo caynkana laga hadlaya raggiina waxay leeyihiin dumarkan waxa weeye xuquuqdooda la raadinaya maxay ahaayeen mar walba xuquuqdooda loo doodaya yacni isfaham darro ay halkaga jirtaa waxaan u baahanahay inaan sameyno jiil dhisan jiilkaasi oo dhisnaantiisu ay ka bilaabmaysa in ubad wanaagsan la soo saaro ubadka wanaagsan waxaa soo saari kara aabbo wanaagsan iyo hooyo wanaagsan baa soo saari kara haddana labadaas aanay jirin waxba lama soo saari karo midho noolna midho fiicanna lama goosanayo sidaa awgeed baa waxay noqotay ama aan u arkay inay muhiim tahay inaan tababar noocan oo kale aan qabano inagoo tababarkani aanu noqonayn mid Facebook oo kaliya ku gaara insha Allah taala oo kan hordhac u noqon doono marba magaalooyin aynu tagi doono haddii Ilaahay ka dhigo aynu tababaradaasi kala duwan aynu ku qaban doono walaalayaal si aynu helna cilaaqaad zawjiya islaamiya xiriir wanaagsan oo lamaanaha ka dhaxeeya si aynu u helo arrimo dhowr ah inaan helna qodobka koowaad u baahanahay ilaa 7 qodob baan tirin doonaa qodobka koowaad u baahanahay waxa weeye guurkan ay lamaanuhu isku guursadeen waa inuu yahay guur sax oo arkaantiisu ay u dhameystiran tahay sida awgeed arkaanta guurka nikaaha iyo guurka arkaantiisu waa 3 weeye rugniga koowaad waxa weeye in la helo laba qof oo isguursanaya wujuudu zawjayn khaliyin laba qof waa in la helaa oo al khaliyin min al mawani' kama waxyaabaha diidaya inay isguursadaan horta marka hore waa in laba qof la helaa labada qof oo laba jinsi ka soo kala jeeda jinsiga dumarka iyo jinsiga ragga ka soo jeeda isla markaana isla qodobka koowaad weeyaan waa in aanay lahayn wax iina ama ceeba oo u diidaya inay isguursadaan waa qodob weeye qodobka labaad waa in la helaa iijaab oo bimacnaa qofku waa inuu dhahdaa inantayda heblaaya baan kuu guuriyay ninkuna waa inuu dhahdaa waan aqbalay yacni qabuul iyo iijaab waa in la helaa rugniga marka koowaad waa iijaab ka saddexaadna waa qabuul in la helo saddexdaas shay haddii la helo guurkaas oo ansaxmaya waxa jira shuruud loo yaqaan shuruud sixa
oo ku ansaxdo guurku ku ansaxo shuruudaasna waa afar weeye sida culimada badi ay qabaan koo waa in la garanayaa labada qof ee isguursanaya waa in la cayimaa rabe hebel baa wuxuu doonaya inuu heblaayo guursado ama heblaaya waxay doonaysaa inay hebel guursato waa in la yaqaana labada qof waa in noqdaan laba qof oo la garanaya qofka la siiyo qofkana waa inuu noqdaa qof la garanayo oo qof majhuula aan la siinin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa diiday inuu ninku guursado gabadhiisa gabadh inuu guursado isagoo aan arag وكي صحابي أنصاري قوي من النبي صلى الله عليه وسلم ورميت قرشتها قالوا ما أركت مرقاسوا ما يدور صارك لكن لازم ويان قفك قرشان ساد نرش اللي هو ذاك سنة أركته صادقو قناعته قدر كل واحد حوي لوضع قفي وين كلراليهن إن أنت نينك لسيه وين الرالي كتاعي نينك وينه جود لسيه الرالي كيه متكم ذا عقبته هو وين الجورر كدحيه ذا إمادة علاقات كلوده زوجي وهي جوايا waxa kamida in ay labada qof aan isku raaleeyeen ama la isku qasbo oo gabadhii ninka lagu qasbo waalidka yiraahdo ducaya hawaar kala dooro hada aabahay ugu ceebeen rag waaweyn baayin karaamadooda meelaha kaga dhicin guurka waa inaad iga aqbasha marka waxa weey waa jujub weeyani ma jirto cid toos oo kala qaat marka qodobka labaad waa maxay waa in labada qof ay raali kala yihiin qodobka saddexaad waxa weeye waa in gabadha cidda meheerinaysa ay weligeedii ay noqotaa عند حق أوله وين النقطة قلب كافرادنا وين مرخات يالو بهركاس وليه وحن كاب بحثنا محي إسلا بحثي يو لغية المدو وحلا سكسين يا الشرع جاهيني وين مرخات يالو يا شياد قالها التي ماذا إن غيرك سكرامله أو موقت لو جورسدو أروس كودي مهركو ودعاي وكقيمة بديه كلا لدونتو ولا هذا حوي الباين ودعاي سام حين ودعاي سام لدو منه وولي وحوي ودوين كلو يستاجو وقاري مدول هذا حاج نقول ريتينت هاوش halkaas ku dhaana maalaab la kala qaadanayaaba marxaatiyaal waa in loo sameeyaa asaaska koowaad waa ka weeyaan in guurkaasi uu noqdaa waxa weey mid ay shuruudiisi dhismaha guurkaas uu ku dhismay waa in uu dhameystiray waa rugniga koowaad weey rugniga labaad guurkaasi yaani xiriirka labada lamaano u dhaxeynaya waa inuu ku taagan yahay cala mahabbati illaahi wa taa'atihi ilaahi subhanahu wa ta'ala jacaylkiisa iyo taa'adiisa waa inuu ku taagan yahay hadii ilaahi jacaylkiisa uu ka maran yahay oo taacada ilaahay ay ka maran tahay guurkaas guur ma noqonayo mana sii jirayo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay waxyaabo romantic ah in badan waxa laga hadlaa romantic baan u baahanay in waxa dawadeedna romantic waxaan u fahanay kaliya inuu yahay in ubax la soo qaado oo gabadha la siiyo ama ninka waxa weeye la siiyo ama keeg yar inta la soo jiro afka loo geliyo markuu afka aayado deena dib loo gala noqdo يعني الرومانتيك انت سنه فاهم لكن واحد جاي رومانتيك اسلاميه ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ونو شيغي بل حديث كان يدي كتب الاخر حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وحليه رحم الله رجلا الهي سبحانه وتعالى هون حديثنين قام من الليل هبينمدي استاغي وهبينك قيب كميده استاغي فصلى تكدي وايقظ امراته دينا غبدي سي تجين فصلت دينا غبدي فايقظ امراته غبدي سي توسي فصلت دينا وي تكدي فإن أبت هديه ديدو هل كانوا صعدا وهل كاسي رش في وجه الماء بير بسوق هذا بيو كسو ويسيستي قيب كميده بسوق هذا وجهده كفر دينيا هذا ما ركتا ما قيل لي اسكو توسماي ناهب لاي ما كعيسا يلاد iyo marada bustaha kala carar iyo go'a ka jeedi waxa ma nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay usluub romantic oo aad lamaanaha aad ku toosin karto iyadoo xaaskaaga aad toosinaysaa iyadoo dhool la cadeynaysa toosaysa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay fayn abat hadii diido inay kacdo haybti sooka salaadii aan tukana xilliga salaatu leelka la gaaray way diiday inay kacdo rasha fi wajhi halma biyu wajgeeda ku saydhanaya biyu ku soo weysay wax kamida buu wajgeeda ku firdhinaya sidoo kale nabi wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam rahimallahu imra'atan inta in leeg ba gabadha loogu duceeyay ilaahay ha u naxariisto gabadh qaamat min al-layl habeennimadii istaagtay oo fasallat dadna salaadii tukatay wa ayqadat zawjaha ninkeediina toosisay وفصلى دبنا تكدي فإن أبى هدو يسوون الديدو رشت في وجه الماء وجهي سبيه كسيرسه يعني بير فريه هذا صار عيب وجهي هذا سدا وقصيرين سو اسمه وتوصل وحي علماء التربية أيضا وعلماء كمرماء العلاقات الزوجية وحليين بيها يرئن لغو سيرين يا وحو كقيمة بدنيا هاي إن الحاس تاقى الذهب يدنيما يفلاو رسات كتوسسو وهاتنا وحوية كالي وبحن هو أما هدية بانكسينية تنحيبتك عادو أما العقد بانكسينية أما وحاسن كسينية وحليين علماء كورماء العلاقات الزوجية بيها ير لو سيرين يوحو كقيمة بدنيا هي wax kasta oo gabadh lagu toosiyo ka qiimo badan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay marka uu ninku xaaskiisa uu yimaado
أو دينيا وحوي إنه نقول قالوا أو قول جاي سوي معدان نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكي الدعاء الآخر سنة عيو دعاء سبحان ما يشك صار شرور النفس شرك وقفك ونفتي سؤالك وهاي النفس كستوى الشريس كلامه سيدا وجد نبي محمد صلى الله عليه وسلم تمعك كسته خطبتي ستمعه وحكسه قادن تري ونعوذ بك من شرور أنفسنا إلهي وحنا كمان قلنا شرارك أيلاد هاي نفها يو يعني نفيه شرور بلي لأن الشيطان كو يجري مجرى الدم هلك وديق ومرو يعني حيدة ديق وهلك يكوي لان حيدة الجديس ديق ودحمراي هلك وديق ومريو بو الشيطان كو مرا سيدا وجد وسوسي سيادتك يسكدرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحود شدي انت على الله أخي اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي وحليه هلا يبر يا هلا إلهي وخير كذا كويديست وخير كوسو جنبه كويديست والشر كذا كام جنقله والشر كوسو جنبه كام جنقله بمعنى محل لقى عرّيا مش وح لقى عرّيا meel kasta wada kasta uu ku soo gali karo shaydaanka meesha laga baxo waana mid ka mid ah waxyaabaha dadka isku dira cilaaqaadka soo jeeda waxa ugu weyn baabiya waa ibliis weey laano ibliis maant inta uu fariisto badda gunteeda boqortooyadiisu badda gunteeda ku taala intuu halka fariistaabo wuxuu diraa askarta markaasuu leeyahay maanta hal qaraab tago oo bani aadamka hal lagu qaraab tago oo hal lagu soo ururiyo naarta hal lagu soo ururiyo way baxsadeene hal laga daba tago oo hal la soo galiyo inta ilaahay adeecday dib ha loogu soo celiyo naarta tawadeedna way imaadaan ciidamadii iyagoo mid walba wax soo qabtay markaasuu leeyahay anigu hebel baan ku qalqaaliyay hebel kale ilaa uu dilay hebel baan ku qalqaaliyay ilaa uu gaaloobay hebel baan laba hebel baa say isugu dirayay bay islaayeen hebel baan hebel kale ku diray ilaa uu caayay hebel baan hebel kale u macaanay markaasuu xantay sidanaan sameeyay waka intaas oo dhan buu xiraada haye ka soco wuxuu ku farxaa ninka ilaada laba qoys dhisnaaban dumiyay ninka ilaada uu ku farxaa ninkan maanta shaqo weyn bad qaata halkan soo fadhiso boss baad mudan tahay يعني لو كرامي أو لو درجة جواد ما دام قيس إسلامي أو شيء أدميسي يعني وشقة وين وقفت إبليس سيدا وجدني محمد صلى الله عليه وسلم وحو جديد يا إنه إبليس وتصاهر سيدا وجد مركز حاس يعني وتجي سوى حالة شديد إن أذكار أخذته وأدبسنك هو قوته حتى قال مدي حراش هي أتجمد على سنة أدبسنك هو قوته سي المهم ناهبين كايدين على الجري أو نقضه معصوم من الشيطان من إلهي الشيطان كوكا إلهي كلن كنا سنو نقضه كلن الشيطان كوكا مريه مرة قال كلامات ومحي ولا لو تير كلامات أو كنت أغني هاي جورك اللي جب هاي الأسس الثانية وحويه علاقة زوجية وين كل سنة هاي محبة الله وطاعته إلهي تعير قصي طاعته تير كستحات العشر بالمعروف وناق وين لوجود نقمة قلب كمان فاهين دونا سيدا وناق لوجود نقمة دونا العشر بالمعروف ربهن إلهي سبحانه وتعالى وانينا أمريا وعاشروهن بالمعروف دمر كينا كل رقم سوى نكثر ولا رقم بمعنى واحد تعيش واحد سويديان علماء لو الشيء كيبا قيمة بدن إن تقفك كل رقم تسيدا تعيش هاي لو رقمه يا إن تقفك كل رقم تسيدا ويسوي تعيني هن ولا رقمه لو ذا كيبا قبسن بدو ما ننسى أنت ناي داونسا بس سؤال شاكي جواب نفتح هذا وجواب لو ذا كيبا قبسن inaad qofka ula dhaqanto sidaad adigu jeceshahay in lagu la dhaqmo sidaad adigu jeceshahay in lagu la dhaqmo inaad qofka ula dhaqanto iyo in qofka aad ula dhaqanto siduu isagu jecel yahay in loola dhaqmo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam labadaba waa sameeyay mar waa leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi midkiin iimaan dhameystiran laga helin ilaa uu walaalkii la jecelaanay waxa uu naftiisa la jecel yahay waa iimaankii dhameyska tirnaa sidoo kale mar labaad nabi sallallahu alayhi wasallam ficil ahaan wuxuu sameeyay markuu magaalada Makka la furanay magaaladii Makka marka la furanay baa nabiga sallallahu alayhi wasallam waa hadlay wuxuu yiri man dakhala bayta Abu Sufyan fa huwa aamin cidii gashay guriga Abu Sufyan cidii gashay waa aamin bimaana la taaban maayo culimadu waxay raadaan markay inta macnaheedu man dakhala Abu Sufyan fa huwa bayta Abu Sufyan fa huwa aamin waxay raadaan culimadu nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam muxuu qiimeeyay Abu Sufyan laano Abu Sufyan wuxuu jeclaa al-fakhr faanku jeclaa من قريش أو مضحبوها سيدا وجد فانك واجعنا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الفخر فانك يوحي الله نوع السلام وجعلين ومع ذلك نبغى أبو سفيان كل رقم فعل كوي سو جعلا إيه ما فعل كو نبغى جعلا أبو سفيان هو جعلا إلا أمانه لكل يا أبو جعلا لكن محمد صلى الله عليه وسلم إلا أمانه لكل يا أبو جعلين
oo waxa way isaguna uu faano oo faan la soo baxo dhadaan uu nin hebel baana oo nin laan dheeraa baana oo noocanana oo hooyadii halka istaagi jirtay oo aabiyaha halka ku kaaji jirtay waxa ma oranaynin وكان لا يحب ذلك أرين كان ما تعلم ومع ذلك أبو سفيان وحو كل رقم فعلك أبو سفيان تعالى سيدا وجد واحد هذا سمدا وقصر رئيسا يتلمانته وقصر رئيسا قبل نمدو وين تقفك كل رقم تروح يسوق تعليه أنا كل رقم واحد عدو تعيشها لأنه واحد عدو تعيشها ما ربنا بأنه قفك أنا تعلم لكن واحد بدل أنت وقفك وتعلانه يو واحد يسوق دوني سيدا وجد قفك مركز حالة الدراسة سواء كل رقم يسوق تعليه ومع ذلك حاس كاجا وين أقول لك أنت سيدا يدو تعيش نينكاغا وين أقول لك أنت سيسو تعليه وأنا أكيد دورنا قضى عدم الاحترام كم تينا قفكاغا أتكون دينا دو حكمة ديشو يعني حاس كاغا ولا رك تبع عدا قارب لا تقبلها سيدا دكو قالوا هي سكون دينا الحاس كاغا حكمة ديشو ومع ذلك سيدو كلا نينكاغا روح تكون تبع عدا ولا هي سيدو كلا واحد دون سينا دو حكمة ديشو حكمة دين لكن تقبله كما هو قضب كاسيس الدحادة وحوي العشر بالمعروف يسوون أكثر الله نغماء علماء الفقهاء واحد عن الحياة الزوجية مبناها المكارمة للمكايسة للمكياسة أما للمكايسة أساس سحقتها الحياة الزوجية مبناها المكارمة للمكايسة حليلك ريركم يعني اسمها ريرات وحو كل سنة هاي الشرفت يس احترام يس قدرين لكن كمرد اسلام حي إن وحوي ليس عنقواتي يوم مركب مدمتك كلا وحماية لك لا أرجوستو سيدا وقدر في حالة الوفاء وفي حالة الخلاف لازم أن تكونوا على سواء حلق اللي يسوافق سنيا أو خلاف آنو كريم يحلق اللي خلاف سنيا لابد ما هو ينسكسلوا ورغما يعني دقن كوناكسن وحو كان سنيا inaad dabeecadaha adiga kugu qarsoonay caradu ay kamid tahay inaad meesha ka saarto aad baabiiso si reerkiina ugu sii jiro walaalayaal waxa la yiraahdaa حسن المعاشرة halkaas kaga tagay waan ku soo noqon doona aniga oo faahfaahin doona marka aan ka hadlayo qodobo 10 ah oo jacaylka xaaskaaga ama ninkaaga aad ku kasban karto marka sheegayo dib baan ugu soo noqon doona asaaska afraad uu leeyahay waxa weeye tahammul al-mas'uliyya min kila tarafayn labada dacalba weena mas'uuliyadda reerka weena qaadaan ninkuna gaarkiisa weena mas'uuliyadda reerka u qaada gabadhuna mas'uuliyadda reerka weena gaarkeeda u qaada يعني وينان من midka kale aan ku hadlaynin waxyaabaha guriga dayacay baabiyana waxa kamid ah mas'uuliyadaha in la isku haleeyo oo la raad taasdama shaqadeedu waa shaqadii gabadheed oo ninka halkan iska barstoonada ilmihiisa oo war ma maxaa caano siin weeyday gabadh baa waxa ku mushahar qaadatay gabadh dhan baa la soo guursanay in ilmaha yar caana siiso maxaa anaga loo geynaya ama gabadhii waxa weey ninkii ka xanuustana gabadhiisa wax maad baranaha dakaala halkan wax ka dhig oo macallimad noqo ama shaqadan ka shaqee si duruuftii reerka aad waxa weey u awdo deena ay talo aniga maxaa shaqada ay diray nin bay soo guursaday ninkaas wuxuu soo guursay si uu ka faala qaato isaga laga doonaya isaga waxa weey waajibaadkiisa guto maya waa in mas'uuliyadda reerka waa in dhamaan labadaba la wada qaada waa in la iscaawiya midba kale aan ku eegin boos banaan baad aragtay out iminka marka qaar kood markan ka hadlayna tarbiyada caruurta barbaarinta caruurta marka ka hadlay waxa dhahdaa caruurtu waxay u baahan maalintii ugu yaraan ilaa iyo 20 jeer wax ku dhow ilaa 20 jeer wax ku dhow bay caruurtu maalintii u baahan hab la siiyo yani laabta la galiyo 10 min al-um wa 10 min al-ab 10 xagga aabaha iyo 10 xagga hooyada haddii ay hooyadu aragto ninkeedii oo mashquulay oo shaqooyin ku mashquulay ama safar galay oo hawlo kale ku yimaadeen iyada laga rabaa inay awdo booska banaanaaday oo 10kii ilmaheeda yar ka go'ay caruurteeda ka go'ay weyn iyadu buuxisa halkii 10 jeer laabta ka galin karto 15 jeer 16 jeer 20 jeer wax ku dhow weyn caruurteeda laabta galisa yani waa maxay waa sadul xaajaat booska banaan bay awdaysa marka ninkiina saasa laga doonayo booska banaan oo awdo gabadhana waxa laga rabaa booska banaan inay awdo mid walba mas'uuliyadiisa uu si ku qaado wayahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyati mid kasto idinka kamid waa raaci arin baa la raaciyo laga doonaya walaga doonaya inuu wixii la yimaado wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyati mid kasto idinka kamid wuxuu mas'uulkay wixii la raaciyo markaasuu nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay war rajulu raa'in fi ahli bayti 'ala ahli bayti ninku wuxuu mas'uulkay waxa gurigiisa ka soconay xaafadiisa xaaskiisa caruurtiisa see mas'uulka wal mar'atu raa'iyatu fi bayti zawjiha gabadhuna waxa mas'uul ka tahay guriga ninkeeda iyada laga rabaa inay wixii ka qaldamay iyo wixii gudihiisa ka jiro dhanba inay hagaajiso inay la macaamusho inay ka warhayso inay saxdo meelaha banaan sida oo kale nabi maxamed wuxuu leeyahay kullukum wa kullukum mas'uul mid kasto idinka kamid waa mas'uul
sida uga mas'uuliyadda guriga way ninkana dhinaciisa ka qabtaa gabadhuna dhinaceeda ka qabtaa wayna la isku eegin walaalayaal al-cilaaqaat zawjiyya waxay u baahan tahay mas'uuliyaddaasi dhamayska tiran la in la ilaaliyo oo labada dacalba la isugu yimaado ni raguna waa inay gartaan mas'uuliyadda ay leeyihiin ilaahay wuxuu leeyahay ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله إلهي سبحانه وتعالى وحليه الرجال قوامون على النساء رجو وحي قوامه كليين ومسؤولية كليين إن لا يلا حساب تما أي تاي دمر كودا محي مسؤولية كل شيء بما فضل الله بعضهم على بعض إنه إلهي كلا فضلي أوجد وننكو كفضلي هاي كبدي كفضلات وكفضلي هو مسؤولية دي وهي إنه مسؤول نكن وياه هدي المسؤولية دي الله كلا دمينا جرجو مسي شري هذا gabadhu tiraado sidoo ninku aniga ii maamula ninkuna uu yiraahdo sideeba gabadhu waxa weeyaan ay ii maamusha ama hawlaha ula timaada uu yiraahdo mas gurga mas'uuliyadiisu ma sii jirayno bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim laano biilki ninka laga doonayo inuu soo bixiyo cida laga rabo biilki in la timaada waa ninka weey sida uga mas'uuliyad baa isaga fuulaysa isaga aanay tahay in la adeeco labada qofna inay sadeecaan laakiin mas'uuliyadda iyo kala dambeynta guriga ninka looga dambeeyo أساس كشناد ولا ليال والمحافظة على أسرار الزواج المحافظة على أسرار الحياة الزوجية إلا إلاليو أسرار تيو حيابها كده دعاية جرجة دحديس هديك ودادو أس خلافتان خلاف يو واحد دحدين دحمرة إلالي بناك يوبه هذا خلافك كهذا ليه وحلقة ضدك قاركود إن مقلان حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليه إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها نبقى قبدي سيوتريا قبدي سحاس كسيبه وقلمانيا وحوي قلمانيا حلاش يدي إلهي ويسوب النيو والله يمنيا ومع ذلك وحي سقي قبدي سدح مرتبه مال نماذا كقشة كان حاليته تان إسلامتي إذا كل جاي تدوكتهاي وأنا هلكا كبلاوي هلكا جارسية إدين عاك غير نقضي يعني دغن كان نوع عساي نبي محمد وحلي وشر الناس عند الله منزلته قفك النوع عسى دغن كان نوع عسى سمينه إلهي أكتيسه كو وشرك بدل لبو كجرا إلهي أكتيسه كو وشرك بدل لبو كجرا بنبي محمد صلى الله عليه وسلم لي أنا وتاك ما هضليه لأنه أنا واحد ديد يا محي كرامتي أما كرامة الشخص بواحد ديد سينو حيوان نوع عسى كهضله واتيا إلى هيد حاسو سفيان قبي markay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa weeye uu la mubaayacay nabigu mubaayacu la galay mubaayacada waxa weeye labada aayadood ugu dambeeya labada aayadood ee aayadi ka dambayso ee suuratul mumtahina ilaahay waxa kaga waramaya hadii ay ku yimaadaan dumarka iyaga oo muhaajiraad ah oo doonaya inay kula mubaayacanadaan ala an la yushrikna billahi shay'an wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awladahun ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله مركو لب بايعون النبي صلى الله عليه وسلم وحي كتري أو تفعل الحرة قبل حرتها وحا مي سميسا يعني قبل حرتها مي سورة قلتها هنا وحدو قبل حرتها مي سورة قلتها يدو حاصلة إني ننك لو تكتو قبل حرتها مي سورة قلتها فعلا النوع علينا كسورة وحلد أو تفعل الحرة جودة حرتها وحمي سميسا لكن كنوع أنا جودة اسمية لا تماذا معنى واحد له كرامتي تمنعني وهنده زوجته وحوي أبو سفيان وحيت لي وحوي كرامتي تمنعني من ذلك يعني أو تفعل الحرة قفك حرتها وحمي سمية يعني لكن كنوع أنا كلا وإنه نيجو كجور ما وحي سجى جودة سدح مرة بناك وسوس صاراي كرامة ديريس dhaqanka wanaagsan baa diidaya shakhsiyada xorta ah ee qofku leeyahay baa diidaya laakiin maxaa nabiga sallallahu inagu maxaynu diideynaa nabigu taasoo ka hadlayay inagu waxaan diideynaa khilaafaadka dhexdeena yimaada inaad waxay banaanka u soo saarin xalqada bari baan kaga hadli doonaa hadii adiga iyo ninkaagu is khilaaftaan sidee khilaafkiina wax xalinaysa hadii adigaaga ay daawanaya laga dhiga xaakim oo lagu yiraahdo waa niyo aniga gabadhaydii baa is haynaa ee kaalayo na garsoor aniga gabadhaydii baa ishayaba ninkuyin wuxuu ku aniga xaaskayga baa ishayna nin waxa doonaa inaad na dhexdhexaadiso oo khilaafkayga aad bal xal u raadiso sidee baad u xalin lahayd ma inaad tiraahdaa waa soo fadhiso adiguna gabadhay waa nin oo aadna soo fadhisay maxay isku haysan gabadhay bal waran maxaad adigu ka cabanaysaa haye qalinka yidhi iska hubi hadda waxaad sheegayso imse qodob oo khalad ka tirsanaysaa muxuu kugu sameeyey markaa taama cadaymaad u haysaa wareey maxaad aduna kaga cabanaysaa gabadhaada imse qodob baad kaga cabanaysaa waaye maxay kugu samaysay
واكن يعني arrimaha noocaas inaad raadisay maaha islaax daat ilbayn barnaamijka hadda doona hadii ilaahayna ina garadsiiyo bankaan doona islaax daat ilbayn sida loo sameeyo sidee baa wax loo hagaajiyaa sidee baa labada qof la isugu soo dhaweeyaa waxay leedahay qawaaniin bay leedahay oo islaax u leeyahay iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala qawaaniin uu ka dejiyay qodobka lixaad walaalayaal ka hadli doona waxa weeye waa al-adl wanino cadaalad ku dadaal gabadhay cadaalad ku dadaal sida uu yidhi nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu la yafrak mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar yaanu qofna qofka muslimka kale uu nicib gabadha hadda ninkaaga aad hore jacayl isku guursato imka khilaaf u dhaxinayni ha nicib oo mar quraha wada nicib haddaad sifa ku diiday sifa kale ku wanaagsan yahay baa jirta maalin baa gabadhi la soo xiriiray gabadhaasi ninkeedu wuxuu ku maqnaa meelaha Yurubta wadan kamid ah ku maqnaa waxay iga sheekaysay markaa waxyaabo ay ninkeeda ku diiday waxa ugu weynaa waxyaabo badan bay sheegtay ay kamid tahay inaan ninkeedu xilliyada uu yimaado labada bilood ee fasaxa uu yimaado inaan labada bilood waqti fiican la qaadan inuu socdaal iyo safar uu ku dhameysto labadii bilood uu yimaado مثلا wuxuu soo masxaqaatay 8 iyo 9 uu soo masxaqaatay sanadkii labadii bilood oo ahayd inuu iyada waqti la qaato labadii bilood wuxuu ku qaadanayaa waqti kamida qayb iyadu la qaata qaybna wuxuu ku qaadanayaa miiga iyo tuulooyinkoodii iyo dalxiisyay isagoo hargeysa degan ba ceeriga iska aadaya soo laba usbuuc ku maqnaanaya usbuucna burca soo jiifaya laba usbuuc kala xamar buu ku maqaya dalxiis wadankii gudihiisa war labadan bilood maanaad ii soo masxaqaatay nino oo aad igu timi mise waxa uu soo masxaqaatay inaad dalxiis tagto oo meelaha aad wareegto marka waxa uga shakiday way ka inaasto waxa uga shakiday inay gabadh meel kale u degan tahay oo gabadha u diso labada bilood oo yimaado inuu qayb ka mid ah iyada la joogo qaybna uu gabadhaas u diso waxyaabo badan oo dhowr ah uga cabanaysa waxa weydiiyay hal su'aal oo ahayd suuragal ma tahay inaad ii sheegto 10 sifo oo ninkaagu ku wanaagsan yahay 10 sifo oo ninkaagu ku wanaagsan yahay waxay tidhahaa waxa ku yiri 10 sifo waxa doonay qoraal dheer inaad igu soo qorto qoraal dheer baan doonay inaad soo qorto sifo kasta oo kamidana inaad ii faahfaahiso baan doonaya sifo kasta oo kamida inaad ii faahfaahiso hadduu ninkaagu yahay deeqsi wax ku siiya deeqsinimadiisa faahfaahi inta soo jeer buu wax siiyay markii uu qaarsan dahab buu ii keenay maalin anigoo iska yaaban buu lacag noo diray hooyada iyo aabahay buu wax siiyay reerkaygu dhismo u dhisay walaalkaygu waxbarasho ka bixiyay jaamacad uu geeyay kan kale yaani ka soo waran 10 sifo ii soo qor 10kii sifo ii soo qortay habeenimo ahayd sidii uu qorisay 2 saacadood bay ku qaadatay gabadha subaxnimadii waxay la soo xidhay iyada oo emotionkeedii dareenkeedu isbedelay oo isla bedelay maxay wanaagidan ay tirisay waxay tuseen inaanay xumaanta yar iyo waxa yar ay ka tirsanaysaay inaanu meelna uga dhacayn wanaaga uu sameeyay wanaaga uu sameeyay waxa ay ka tirsanaysaa inaanu meelna kaga dhacayn sida ogeed al-islaax daat ilbayn waxyaabaha u baahan waxa kamid ah wax wanaagsan mooyaan wax xun la sheegin qofka kalena wax xun laga sheegin laakiin wanaag wala sheego qofkan wax wanaagsan uu sheego anu waxaasan kugu haya oo wanaaga oo waakan laano shaydaanku si uu qofkan xumaantiisa ku tuso dhamaan wanaagyada oo dhan buu qarinaya xaaskaaga iyo ku wanaagsan oo salaada subax 4 habeenimo ku kacda oo xabiibi salaada oo kac kula oo biyihii kulula ku diyaarsan oo quraacda ku fadhida oo maanta oo dhan ku shaqeynaysa oo guriga shaqadiisa haysay oo dharkaagii maydhay oo kaawadeysay oo caruurta cuntadiisa siisay oo iskuulaadkii waxbarashadii geysay oo inta adigu shaqada ku maana laga yaabo shaqada inay AC tahay xafiisaad fadhiday oo computerna garaacay shaqo badan aanad qabanaynin waxa laga yaabaa in iyadu inta dabka ku jirtay sii soco iyadoo xaamila haday doonto qadada soo qaad adeega soo qaad dabadeedna kari dabadeedna hagaaji soo dhig iyada naftaada soo hagaaji qolkaaga hagaaji odagaaga biyaha u sii diyaari waa kan intuu hurdo caruurta ka seexi waxa weeyaan ku booqno ku qaylanin waa kan yaani waxa soo shaqaa qabanaysa waxa laga yaabaa inaad hal dhibaato inaad ku aragto dabadeedna aad ku nacdo waad gabadhii baad nacdo shaydaanku muxuu ka qarinaya wanaagyada faraha badan muxuu ku tusinayaa kaliya halka xumaan ku tusay laana isagu wuxuu doonayaa inuu qoyskani burburo inuu sii jirimo doonayo sida ogeed nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay hadii qof mid kale yaani ninka muuminka ay gabadh muuminad iyo sanicin hadaad wax ku nacdo waxaad ku jeclaanaysaa jirta gabadhaadu macquul ma hayna meel walba ku xumaato sidoo kale ninkaagu macquul ma hayna meel walba ku xumaado hadaad leedahay ninkaygu ima jecla ninkaygu waa sidan ninkaygu waa caynkan waxyaabaha aad leedahay imsa meelooda kale ninkaagu ku wanaagsan halkan meel aad ka tirsanaysaa eegini imsa meelooda kale ninkaygu waqti ima siiyo sheeko qosol la mid iga sheekay wuxuu yiri gabadheeda waxay ugu tiri xaaji
berigii hore ee intaynaan isguursanin hadiyadaadii keeni jirtay waad daryeeli jirtay maxaan ku raadayay ubaxa flowerska hudheelada yani meelo kala duwan baad geen jirtay iminka markaan isguursanay wixii oo dhan waa joogsi ubax ma jiro hudheel la tagaya ma jirto dalxiis la aadaya ma jirto meel loo baxaya ma jirto waxa madadaalad iyo sheekadii ma jirto maxaa dhacay deedna wuxuu miyaad aragtay nin ololad doorasho intuu galay isagoo guuleystay haddana ololihii sii wada يعني waxaa soo dhanaan soo waday ololahay sidii aan kugu heli lahaa waa dhaqanka Soomaalida ah maxay gabadha been baa lagu soo xirageliyaa run oo lagu dhaqaa oo dhaqan aad u liitay weey dhaqankaasi uu isagu qaabay wuxuu ku leeyahay waxaan aad arkaysay oo dhan waxay ahayd inaan ku kasbado oo aan ku soo waxa weeye ku soo gashado milyanka nin ee hareeraha ay taagan ku soo eegay inaan ka soo ceshada baan doonay saan taa u helo baan waxa weeye hadiyadaha kugu badinayo oo keega kugu qaadayo oo naanaca ku siinayo oo maxaa ku dhadayay biisada ordaysa iyo shuwaarmada safaariga waxa soo dhan waxa dhoolatus laakiin maadaama nimka ku helay wixii dhanba way istaageen dhaqanka noocaas ah laakiin dhaqanka sax maaha waxa wanaagsan in lagu wada dhaqmayaa waxa weeye waa inay noqoto waxa weeye wanaag ay noqoto macquul ma tahay inay gabadhi tiraahdo ninkayga waxaan isqabnay 20 sano hal kelmad oo xunna waligay ma oran macquul ma tahay inuu nin iraahdo gabadhayda waxaan isqabnaa 25 sano ama 20 sano isqabnaa maalin maalmaha ka mid isma khilaafin maalin maalmaha ka mid kuma arag gabadhayda waxaan naco iyo waxaan dhibsado midna kuma arag macquul ma tahay inaan dhaqanka aragno hawa macquul nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dhaqankiisa darracno way nagu filantay وكان أنس بن مالك وحكلية خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين رسولك إلهي توسل أنه أديقي مال مالمها كم ذي معنا ولا قال لي أفني مورا يعني هذا الحني مورا وحا سميين مورا محل سميس وحا السمين مورا محل سميويلي وحسن المعاشرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقى كون أكسن بولها بل لقى كون أكسن السمين كرنا معقول متى أنا لقى كون أكسن أنا هذا معقول ولا ليان أسس كتضبط قيمته هراء كسر جوجيني على الأسس بناء العلاقة الزوجية الإسلامية أسس كتضبط وحوي اختيار الأكفاء من الأزواج ضد كإسكورسنا يريرها السمانة وين النقدان ضد يسوق له اللي ترى يعني ضد يسوق المكروين النقدان يعني من أقوياء نواطح جواد شاهيلا دوان مد أقوان الله ينكم مدغ كرتون جواد أقوياء نواطح nin jaahil oo aan mid aqoon imika tuuladii reerkooda ka yimi kuma dhaqi karo gabadh dabaqadeedu aad u sareysan nolosha oo waxa weeye nus saacaha fee aid ku doonata oo waxa weeye $100 qaata oo dhaqaalaha nus saacaha $100 bay u qaata hudheelada ugu waaweyn ee Mansoor bay tagtay waxa weeye ku soo koobka shaha Mansoor baa looga dalbaa waxa guriga lagu sameeyo waxa macunto adigoo faqiira oo yaaban oo waxa weeye shiida inaad gabadh noocaas haweysto waa khalad gabadheena sidoo kale nin noocaas inay haweysato waa khalad maxaan u baahanay alla kifa waa dad isu dhigmaya waa levelkaaga la jaanqaad nin aqoonyahana waa tahay gabadh kale oo aqoonta waxooyaba ka hooseysa laakiin at least wax garanaysa aqoontu bilaaban tahay fahmi karta shaqooyinka aad qabanaysaa dhowto waxaad ku mashquulsho laana waa maxay waxyaabahan waa la iskaga daba imanaya ninku marka la sheekaysanayo wax la oranayo gabadha waxa lagu oranayo wax kasta raali baan kaaga ahay wax kasta raali baan kaaga wax kasta ana ku sameeynaa hadda uu marka reerkii la sameeyo dabeecadii la isku aqbali maayo waxa la oranaya ninkeygu ima jecla waqti ima siiyo walaashay ninkan isagoo mashquulaad guursatay marka horeba isagoo mashquulaad dooratay oo 24 saacadood ba shaqeeya oo telefoonka tuu doonaan ka qabanin oo marmar chance ku hela 5 daqiiqo telefoon inuu kula hadlo haddii maanta guriga la isugu madaqankii isbedeli maayo ninku waa ninkii haddii gabadhaadu ay markii horeba markay banaanka joogtay ahayd inantani inan faakahaysigeedu badan yahay oo dhaqaalo badan ku soo kortay oo maxaan ku dhahdaa shaqo badan aan loo diri jirin maanta markii guriga ay timaado inaad tiraahdo waxa weeye maxaad igu shaqayn weyd maxaad sano qaban weyd waad isbedeshay ima ogalid gurigii ma dhisaysid tara waxaad gurtaa waa khalad weey laana waxa banaanka marka banaanka la joogo la isku soo aqbalay waa in marka uu guriga la yimaado la isku aqbalaa ninkaaga waxa aad ku aqbashay isagoo banaanka joogo waa inaad marka guriga yimaado gudihiisa ku aqbashaa sidoo kale ragga qaarkood iyagoo doonayna inay dumarkoodu dabeecadooda aanay fahmin dhaqamada qaar bay iska keenkeenaan waxa kamid ah nin baad arkaysaa habeenkii cishaay marka la tukado gurigiisa toos uma aado nin maxaad guriga toos uga aadi marka cisho la tukado wuxuu ku leeyahay nin waxaan diiday inay gabadhu la qabsato waqti go'an habeen waxaan tagaa 8
habeen waxaan tagaa 9ka habeen 12 habeen 1 tagaa ومحد كيلا نسا إن الجواد الله قبضته وقت جوان وايد ترى أنا وقت جي جوان أنا الدنيا وهذين كان صاحب صامت تلفون على يشوط متر الله على هلو حاجات قبضت حاجة كمية الله على بنديد يا أبو كلي مكانين كاسي أسلوب كاو وش اسمه أسلوب قدوي دمر كاركود نسيان الركود طبيعة ده أنا وفهم وحياها كاركود بالله ما ده مثل الصاحب تلميذ قصة سنة شوكتها ده ما حنا سجلوا كاستم يلبا وحكي صادقتها وطول المشهد وحكي يطلع ميل ينوع تكتجوا يانو من كذا لو شيء ميسو محد ينسى واحد دون ينسى وقت أصحابتي لا قاطين السمايسته يدو كوك جبان السماحي وحبرشون كوك جبان هذا ما رتوا ولا دقن كي جورج دحلي سيبا وحلا سجود السماحي دقن أنصحهين فكر أنصحهين بل مال قلني ولا إيب جينية دقن ما عسوا كلام دقن قدوي سداويد بالنبي صلى الله عليه وسلم وحلا تنكح المرأة لأربعة قبلنا واحد لو قرشنا أفر مدن باللو قرشنا قروح ذا لو قرشنا نسب كذا لو قرشنا قبيل سنة كدلاتين حوله ذا لو قرشنا قبل حوالله يتهاي دين تذا لو قرشنا نبي واحد وقعت كينا يا صحابة فضفر بذات الدين تربت يدا يعني واحد دورة قبل الدين تلا دورة قبل الدين تلا يدا دورة تاسع واحد هو كفينس يعني وحي كله فاهم قرتها سداوي واحد أنا علمه هدي قبل واحد هو أي تهاي قبل الدين تكفي يعني تهاي سكستو خلافات وما دول حلين كره هذا الدين تكفي عنها ولا ليال مركا هاساوها اللي بتشرو إلا هاساوها يعني من كلا شيء كسنس أما قبل هذا شيء كسنس سببها هاساوها اللي بتشري وحكم ذا إن أتجرى تقف كني إنه يقف كوق المين أنا وهاي قضب كيوران دواس علاي واتفادوا بنت قيس صحابي دي لورنشري با واحد صوت دوني صدق نبى صوت دوني يعني لو أنا بقى صوت دوني تنوهين واحد صوت دوني معاوية بن أبي سفيان يا صحابي قالوا نجري أبو جهل لولا نبى صوت دوني سيدو كانوا واحد صوت دوني أسامة صدق ذا نبى وحوي دمعية كلا شيء كستي حديث كان علماء الحدود اللي شدان إنه قبل الله شيء كسان كرتوا خلني وحكي بدن صبان ما قال كم بيشريسان مد بكرة عدا سمليون بيه ذا وانت شري جرتين أو مسكح لنا في عن أبو سفيان يا أبو جهل يا أبو جهم بلي أبو جهم يو أسامة صدقني النبي صلى الله عليه وسلم لا تشترك رسول كلا يوم إلى تاني صدق ثانين وليلا دور محيي راده لا ولا نبي صدقني صدق ثانين النبي يقول أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه نك أبو جهم لا يرضى وحوي قورتي سبب دنجده كما دغو بمعنى waa dilaawi dumarka waa garaacaan kaas marka dad doonayso inuu ninkaas ku dilo oo ku qanqaniino oo marba dangada kula dhaco de waa meesheeda ninka labaad oo ama muawiya fasalu kullu ma lahu ninka muawiya waa faqir mid ma haysto maciidu soorkaaga dhigaya muxuu ku siin doona wa taladii nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkaas xuma haysto waa faqir weey inkixu usama ibn zayd usama guurso deena way yaradide markaas nabigu hadana taladii ku celiyo xukuul usama guurso markaas deena guursatay iyada faadimo bint qays ba ka waranaysa wax leeyahay faja'ala allah fihi khayran ilaahay khayr buu iga dhigay yani khayr badan baa ilaahay usama ii galiyo markii hore waa yaradide wax la horniyo usamihi yaraade muxuu waxa weeye magaranaysa khaadimkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa weeye waxba ma haysteen needa adama aragta marka nabiga sallallahu alayhi wasallam waa la taliyay faadimo bint qays xadiiska waxa laga qaadanayaa in sababaha qofka lagu diidi kara ay kamid tahay inaanu dhaqaale haysan dadka qaar kood wax ka oranayaan sababaha la isku guursada kama mid aha inuu ninku dhaqaale leeyahay gabadha inay dhaqaale leedahay war walaalo waa kamid faqiir hadda tahay faqiirnimada qiila u raadin faqiir hadda tahay faqiirnimada qiila u raadin haddaanad qurux badnayn quruxdaada qurux la'aantaada ha u raadin qiila u raadin أهرب وحويه مثلاً قروح ما جبت قروح دوات قلبي قوي قلبي أنا وما ضال عنا أنا وحنا رجنا وحك هم وغنية هددنا عتيب السو خلاص وكاهل ساسل جوجل سنة هدي قال لك أهل عيد كاهل شجرته قف كستو بني آدم أكو أدون كإله يكون والله عيد كهشة وويا هي قروح يهل دور ويا هي بجرته هذا قف كستا كو فاش حلا أدون كهدو يهينك يا جواد أوقف فاش حول الدمر كانت هاي عيد باكر تكون ضخرا ولو حوي عنا ينجح هيسا ولون كل هذينا تروح حاجة كهلا مرجع عيد باللون وتها
marka cid aanad luulu ahayn oo aanad dheeman agtooda ka ahayn oo aan ku doonaynin ha ka dhaadhicinin fikirka ah quruxdu waa ta qalbiga wejiga quruxdiisu wax ma sheegto walaalo way sheegtaa macnay samaysaa haddaanay macno sanayn nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam mu yidhaahdeen waxa weeye ha lagu guursado afartaa sifo ha lagu guursado mu yidhaahdeen haddaanay macno samaynin marka macnay samaysaa waxa weeye niyadaada ku dhisan macnada samayso carabtuna waxay odhan jireen man talaba maxay odhan jireen qofkii doona man talaba alxasnaa lam yughilhu almahr qofkii raadiya gabadha aadka u quruxda badan inan aad u qurux badan oo qalanca oo dheemana baad aragtay oo dheer oo la yaaba inanta noocaas aad aragtay waxa weeye malaayiin nin baa soo doonaya si waxaasoo ragga ay u kala saarto waxyaabaha ay ku kala saaraysa waxaa ka mid ah adduunyo wuxuu haysta ninkan maxaad haysataa meherkayga maxaad ka dhigi kartaa ya 100,000 oo garaam oo dahab ma ka dhigi kartaa marka waxa la man talaba alxasnaa qofkii doona gabadha quruxda badan doonaaye lam yughilhu almahru meherku qaali kuma noqdo sida ogeed raggii hore Soomaaliyeed dumarka waxay ka bixin jireen 100 geel iyo faras iyo waxa weeye qori way ka bixin jireen waxa soo xoolaa u bixinay wax laga yaabaa inuu 100 geel oo kaliya u haystaba gabayada ragga qaarkood abwaanintaaba ku dhacday iyagoo intii ay haysteen ba lagala wareegay wuxuu xoolo haystay waa lagala wareegay gabadh baa lagu soo daray isagoo malan oo qaawan oo go'a uu guntiyo inaan wax kala xidhnay wixii xoolo haystay uu ka soo tibcayay reerkooda ay siiyeen ama uu soo dhacay ama uu dagaalka u galay ama uu waxa soo dhan uu hawl u galay waa lagala wareegay sababta lagu wareegay waa maxay gabadha quruxda badan uu raadsaday awgeed weeyay walaalayaal intaasi todobada qodob waxaan doonayaa inay u noqdaan usus al-cilaaqat az-zawjiyya ama usus binaa al-cilaaqat az-zawjiyya fi al-islam bayn todobada tii doonayaa noqdo hadaba waxaan doonayaa insha Allah ta'ala waqtiga daqiiqadaha ay hartay ilaa 20 daqiiqo meelaha say haray inta ay harayna qodobo dhowreed la wadaago kow si xiriirka reerku uu jiro imka waan dhisnay reerkii wixii looga baahnaana waan sheegnay jacaylka ilaahay iyo taacada ilaahayna in lagu dhisaayo gurigii waan isla garanay shuruudihiisa inuu isu dheelitiran waa isla garanay labada istoortay ee reerka sameeyeen laba qof oo isu dhigmayeen waa isla soo garanay arrimo badan ma isla soo garanay oo todoba ah inta marka isla soo qaadnay reerkii waa dhisan si uu reerkana hadaba u sii hana qaado afar shay waa in la helaa kow thiqa kalsooni waa in la helaa kalsooni ay isku qabaan labada qof gabadhu waa inay ninkeeda kalsooni ku qabtaa ninkuna waa inuu gabadhiisa kalsooni ku qabaa maxaa laga tagayaa shakiga oo dhan wax allaala waxa shaki keenayo oo dhan baa laga dheeraanaya maxaa shaki keeni kara dabagalka inaad ninkaaga daba gasho inaad xaaskaaga daba gasho taado subaxii markay adeega u baxdo markay subaxii adeega u doonto toro maxay doontaa maxay qabataa shaki waa mamnuuc waxyaabaha meelaha uu shakigu soo galo waxa ka mid ah moobilada hinaanad ka shakiin moobilkiisu hadduu soo dhaco inaanad taabanin moobilkaagii baad soo dhacay halkaas u yaala halkaa yaalo xaaji moobilkaaga uu dhacaya haye waan u imanaya ha qabanin haddii sidoo kale xaaskaaga moobilkeedu uu soo dhacana ha qabanin waxyaabaha shakiga keeno dhan ma ka taxadirayna waa qodob weeye sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu meesha ka saaray haddii nin uu musaafir ahaa oo safar ugu baxay dabadeedna aad habeennimadii saqbarka aad ku soo beegantay guriga saqbarkaad guriga ku soo beegantay wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu diiday inaanad gurigaaga si kadisa ku imanin adigoo aan baaq iska horeysiinin bimacnaa waa maxay safar baad ka soo gashay waad maqnayd wadan kale aad jirtay airportkaad ka soo degtay gaari taxiyaad soo kaxaysatay magaaladaadii xaaskaaga carruurtaada deganaayeen baa timi gurigaaga ha aadine hodheel ku deg subaxnimada telefoon garaac xaajiyo ma fiican tihiin alxamdulillah waa fiican maasha allah dee magaaladii waan imiyo waan idiin iman doonaa insha allahu tacaala ayaa duurkii qadada igu talagala وبالله التوفيق انت سيكون دمت محو نبي دي صلى الله عليه وسلم ايربوت كاد كسو دغتي يدو لغوغي سكديسا ان الباب غورغا سو قال قو 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 هاو كما يغفر وانيغه ما حد كلا كل من دونتا غورغاي رجع قالكود wax koonay inaa kadis ku qabtaay damba ay ugu jirto waxaan ogaanaya gabadhu waxay sameeyso maxaa ka faa'iidin inaad xaaskaaga qafla ku qabato يعني هو الشكر رادين صومها نبي محمد صلى الله عليه وسلم واديدي شكر رادين تواديدي سيدا بيد قدوك كوادا لو باين لبدا لمانياشا كودا دغماما maxay kalsooni weyn leeyahay waa kow qodobka labaad waa maxay cilaaqo weyn la helaa xiriir wanaagsan waa inuu ka dhaxeeyo qodobka koowaad kalsooni buu xaaskaaga si kalsooni buuxda xabiibti waa kugu kalsoonahay talaabo kasto aad qaadana waxaan
ogsoonahay aan aaminsanahay inaad wax wanaagsan mooyaan aad xumaan sameynayeen damaarta waa qodob weey ninkaagana uu sheegtay dad xaaji waa kugu kalsoona nin hadana kugu kalsoonay ragga inta laga adduunka ku nool kaamaan doorteen adiga kalsooni baan kugu qabaa inoo tali waxaad noogu talisan ku go'aa waa kalsooni waa qodobka labaad cilaaqa iijaabiya xiriir wanaagsan waa inuu ka dhaxeeyo adiga iyo xaaskaaga adiga iyo ninkaaga oo xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo hadii aanu xiriir wanaagsan aanu jirin waxa ma soconayaan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay waa ka waramay wuxuu leeyahay fa bima rahmatin min allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نبي محمد نحريس لا يحقي سكاها تأوجد بد بعسنات الصحابة ولو كنت فظا هذا هلا من العضق وغليظ القلب قلبك سوى ذقيه لانفضوا من حولك وكايا على هاي صحابة وكايا على هاي كور ما هدي نحريسته ومد كم ذا وحياة حرير كلامانيات وناتية إن قفك تعيش أيوة نحريس وهاي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتصال أيوة كشري النبي محمد الحشرية صفة وجوين قفك إن نحريس وهاي سشيك تايوة دون كشلوي أرجع ما يفاتين صفة وجوين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوشيء إلا يفهم حديث كيسير لكن كيس اللي يفهمي تعيلك يعني نحريسته صفة نحريسته تستاي ودون كشلوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسقوا ودون كان يا لبدي ساعة رأي حسن يا حسين هذا الشيء فاطمة بنت الرسول يا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله أي دلين بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوحوا من الصحابة قال الأقرع بن حابس ابن حابس وحكون الرسول كلا هيو وعروته ما دون كتان أنا وثمان عرورة والله هيو مد إيه كم ولي ما دون كنين ثمان عرورة والله هو مد إيه كم ولي ما دون كنين النبي محمد صلى الله عليه وسلم الساعة على ayuu uga jawaabay dooda ninka saxaabiga ay leeyeen uu fooray markii hore waa soo istaagay riwaayadka ku timi codkiisu uu weynaaday dareen carala nabiga ka muuqday waxaanu yiri maada af'alu lak an naz'a Allah fi qalbika ar-rahma maxaan ku sameyn karaa hadii ilaahay qalbigaaga uu naxariista ka saaray bimaana hadana wax naxariis oo aanad lahayn maxaan ku qaban karaa xadiiska waxa laga daliishaday sifada ugu weyn iyo simada ugu weyn iyo qodobka ugu weyn ee naxariista tusiyaa inuu dhunkashada u yahay ilmahaaga yar haddaad jeceshahay waa dhunkani xaaskaaga haddaad jeceshahay waa dhunkani odaygaaga haddaad jeceshahay waa dhunkani aabbaha haddaad jeceshahay waa dhunkani hooyada haddaad jeceshahay waa dhunkani laakiin maxaa kala duwan dhunkashooyinka kala duwan dhunkashooyinka waa macnayaal sameynaya markaan ka hadli doono mawaadiicda barbaarinta ka hadli doonaa 5-6 nooc oo dhunkasho ah baa jirta mid kasta oo 6 nooc ee dhunkashada kamid macna gaaray sheegaysa iyo sifo gaara wax gaar ah ka hadlaysa markeedan ka hadli doona qodobka labaad markaa waxa waa cilaaqa ijaabi xiriir wanaagsan oo ka dhaxeeya qodobka saddexaad tacsiis ijaabiyat waxa xaaska uu ku wanaagsan tahay ku dhiirigelin waxa uu ninka uu ku wanaagsan yahay ku dhiirigelin la sameeyo xabiibti maanta qadada mahada kariyaha ma sha Allah cunto ka macaan ma aragba gacanta ilaahay ku barakay maxaad maalin kasta dabkaaniga awgeey baad ugu jirtaa ilaahay khayr ha ku siiyo jannatul firdaws ilaahay kuga awaal mariyo wakaas iyo waxa weeye ma awaal marin baad leedahay oo ku awaal marinaya wanaag yani waa tacsiisul ijaabiyad waxa uu ku wanaagsan yahay u sheeg xaaskaaga u sheeg mar walbana in is dhiirigeliyaay 10 shay oo xalqada baritaan ku sheegi doono oo ah 10ka shay ee jacaylka lagu dhiso hadii la doonayo in jacayl la dhisho 10 shay baa lagu dhisaa qodobka 10aad baa wax yahay dhiirigelin barnaamij hadli doona hadii ilaahay ogolaado marka waa maxay qodobkaasi ijaabiyadka inaad ku dhiirigeliso qodobka afraad waa maxay تعديل السلبيات وحي خلدان إلا بدلو waxa khaldanna usluub baa la isugu sheegaa xaaskaaga marka doonaysa inaad wax qaldan u sheegto waxaas inuu qaldan yahay sidba qaab loogu sheegay baa jirta aanan lagu sheego bal waxa sameynaysaa mad qof weyn ahaan aqli maar lahayn meel ilaahay garaad ku siin bal waxaanu kaama filan inaad inta dhaantaaban mooday erayada noocaas oo dhan waxbay dumiyaan waxma hagaajiyaan hadda sheekh khaldan aad aragto si kala u dhig wallahi sidaas si ka qurux badan baan jeclaa ما شليتو مركي أن واحد سميسي آد بانو فرحي هذا ما ركتا بوس كهذا سيدا كوب بدل له وعنا الله وسوى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة قاركود وشيء صحابة قاركود بو حكولها مركو الله اللي يحوي عبد الله بن عمر بقول له اللي مركز سوى حكول إن عمر رجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي بالليل عبد الله بن عمر نكلا هذاي وعمر بن الخطاب إيران كيسيبوا النبي يقول الله
وعقول أي نينك عبد الله بن عمر هذا نين كون أحسن ما تشيل لهين هدوها بين ماذا صلاة الليل كتكون لها بمعنى عبد الله بن عمر صلاة الليل ما تكون تري حل جاء ونبي الله هطلع نبي نروح وعقول أي هاي عبد الله بن عمر نيك هذا نين كون أحسن ما تشيل لهين هدو صلاة الليل كتكون لها يعني هو محي حاسك يقفك أتعش يقفك كلا كاس ورشة إذا مركز وحوش شيء سقابك وحوش شيء سيهنهضه والله هذا صدا سماه الله ويقرح بدنا الله ونيجي نكشف كيني ننكي وحوي هيساقها يسقوا هيسيا صحابي عبد الله بن مسعود وصامر عبد الله بن مسعود باوي منين هيسيا وضدك ولا سلام مسلمين تكمله وهيسيا بوي مركاسو مركو ننكي أركي عبد الله بن مسعود قارئ القرآن كمركو أركي بو ننكي يريح يحوض يرى آموسي تنوحوا ما أحسن صوتك محا عدك كون أكسن محا عدك كمعان لو كان بالقرآن هطو عدك ياس القرآن هالها بمعنى هذا القرآن كو آخرين لهين عدك معان محا كون أكسن لها إسلا الدقيقة دي ننك يسوى أن كدقين ميشي وصارنا أن كدقين باب قرآن وحقوقاتين القرآن كبرتو انت وحكي من القرآن كنت تكو آخرين جري يعني هو محي وحوي مركا الشيء وناكسين تكو أركتو ديرجلي هذا تعديل السلبيات دون سوحهم ولا سمينا بدشنا أسلوبك واحد بدلك هجاج عنان وحول ما بدلو قيلة وحول ما بدلو ماجد وحول ما بدلو قفك أول حساسية خلدات كيس اللي ما بدلو إنه بنقى وحولنا نهاي قف خلد جلية خلد كم واحد لو وحك سوا حساسية عفرت الخلدة هرو جلي ورما يقولي ما محكمات بقى ومحكمة لما نقف ما واحد بيشوي تجاسي اسمه محكمة ضيان ومدو ميتك كلا waxa uga goosto soo adigu ma soo diga maalintii hore istaagay maalin hore ma adigu sidaan u sameeyay maxaa daimka u qalin sadaan u sameeyay waradii maxaa maalintii hore ku xasuusiyay imka dad dhaqankan xun yahay imka jooji waxa adigu jeceshahay in wax weey wanaag lagu sameeyo adiguna wanaag sameey laakiin inaad xumaan ku abaal gudo ama la isu tiriyo la yiraahdo wax weey inoo xisaab imsa khalad baad ka gashay inta jeer aad waxa weey biilka ku ciyaartay ma ku sheegay maalin hore wadiga sameeyay oo maalin hore wadiga sameeyay oo maalin hore wadiga sameeyay oo birigan soo guursaday sameeyay oo maalin dhawna saas imikana wadiga wada waxa soo qalad weey taadiil salbiyaadka lama ogola si walaalayaal cilaaqa ijaabiya ay u wanaagsanaato oo waxa weey xiriir wanaagsan oo dhaxmaro ninka iyo gabadha iyo ninkeeda oo xiriir wanaagsan oo dhaxmaro waxaan u baahanahay kow jacayl in la helo جعل كانوا بهنا نوع جعل حقيقية وحيد هذا علماء النص يسوق علماء التربية يا علماء العلاقات الزوجية كهذا واحد هذا جعل كالرسم اللي يروح بلا ما الله وصلنا كبعد مركز منك يجودوا إسقوان منك يجودوا مركز الله وصلنا وإذا تشوفون كبعد الحرير كنبتها جعل كنبتها مركز صوب بلا ما كهر جعل كنبتها ما بلا ما هذا هو يا الله وضعنا حاساوي يا وما حي جعل كان هاي توك جعلها وكل من يا وحيلين واي هذا وحوي خدك عين واي وحنا هذا الوقوع في الحب ضد كان جعيل بيكون عين لكن جعيل كنبتها ما هيان جعيل كنبتها قرمي ماذا لا وصلنا مركز اللي يسقطك بعد ولا وصلنا كبعد سيدا وجد لما أنا ياشا إمك يسقط عصب لما أنا ياشا إمك يسقط عصب إمك وجور كود السجوه الرئيو مركز وجور سي خلافات أي دريمان لو هذا صدق البلاد وجور ريا جعيل كي هو هذا هاي اللي سكسو جورسدي ماشي الاولي الوقوع في الحب وحي قانون علماء وحوي علماء العلاقات الزوجيه با ماشي صدق بلاد شن بلاد marka la wajo ka bacd waxa soo baxaya kii rasmiga ahaa la doonaya inta ka rasmiga ay ka imanaya khilaaf ay imanaya ninkii gabadhii wuxuu ku arkaya dabeecado waayo gabadhu markay banaanka joogtay ninka way iska ilaalin jirtay yaani waa la iska dhisi jiray ninkuna gabadha uu iska hagaajin jiray markuu habeenka la kulnaadaan is aragno dharka ugu quruxda badan leh cadarada kii ugu dambeeyay waxa la isticmaalaya si gabadha wax weey la isaga dhaadhiciyo gabadhuna si ninka isaga dhaadhiciso hayaa xijaabka niqaabka asturnaanta waxaan ku radaa dhowrsoonaanta tabiicada wanaagsan waxa la istusaya laakiin hadda uu marka guriga la isugu tago xaqiiqadii rasmiga ahayd baa la isugu imanaya sidaa wada waxa la jacaylka dhabta wax bilaama 2 sano ka bacdi markay isku sido qodobnaan halka ku daro guri lamaanaha xiriirkooda kuma taagnaan karo sabir in waxa ka oranayaan rag dadka qaarkood wax ka oranayaan guriyaha qaarkood waxay ku taagan yihiin sabir sax guriyaha qaarkood sabir bay ku taagan yihiin laakiin ma aha inuu gurigaaga sabir ku taagnaado wuxuu ku leeyahay gabadheeda wallahi ma jeceli kamana helo laakiin caruur bay ahaysaa waa isaga dulqaadadka lama ogola maxaan uu isaga dulqaadanaya anigu jacayl baan u baahana xaaskayguna jacayl bay doonaysaa dee jacaylka u baahnaydaa siiyo
هي سؤال مش ترى حوي سيدان جعيل كوسين كرا أساليب يدقنا الله راعابات جتا دقنا ده هذا راعو جعيل بدهليسه ninkaaga waad siin kartaa xaaskaaga jacayl baad siin kartaa hatta isagoo jacaylka qomad bari kartaa adu laakiin maxay ku xiranta waxa soo dhan adiga ka soo goodo ficilkaas doonisto adiga ka timaado baaritaan samee sidee baan ninkayga u kasban karaa sidee baan xaaskayga u kasban karaa sidee baan jacaylka labadeeda naga dhaxeeyo aan u kordhin karaa yani waxa adiga laga doonayo weey sida ogeed xaalada khaas ah baa nabiga sallallahu alayhi wasallam ka soo aroortay inuu leeyahay gabadhaada u sabr يعني gabadhaydu waxaan doonayaa inaan furo isaga dul qaado waxaanada go'an iyadoo wax la eegay gabadha caruur baa haysan lama furi karo caruurta ha ku furin ninka waa nacay maxaa sameeyay ninkaaga iska furino ila caruur baa idin dhex yaale caruurta ilaali yani duruufo kala la xeerinaya laakiin idinku isma xeerinaysan ma oranaysa gabadhi ninow anigu jacayl baan doonayaa sidee baan jacayl ku helaa gabadh ninkii ma oranay حيث أنا جاهل بانو بهنا سليمان جاهل كهلا جاهل اللي هلا ولا لازم وين ولا بحب أنا جاهل حقيقي أو شرط كحرنين هذا إيوانا سناته هذا سنة إيسا ميسو وانكو جعلاني نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كاسين ضعيف يا إيوان ملانا ياهي بعايشة ويدي سكتي النبي إلهي حرير وحوي جاهل كعديقة بتاعي انتين نقبل ليجيه وحلوة أذقيها إلى انتين وأذقيها waxa adag yahay sida guntinta la adkeeyo oo kale yaani guntinta la adkaa al-urwatul wuthqa guntinta hadii la adkeeyo oo la xoojiyo ma go'do sidoo kaas uu adag yahay ba jacaylkan adiga ku qabaana uu adag yahay waqti nabi sallallahu alayhi wasallam isagoo banaanka jooga nin saxaabiye baa nabiga la yaabay dhaqan wanaagiisa markaas wuxuu isla wariyay nabiga ilaahay dadka baad kugu jecel markaas uu ku yaa rasuulullaahi ayu naas ahabbu ilayk rasuulka ilaahay dadka yaa ugu jeceshay markaas uu Aisha ugu jecel jacaylku madmadow ma galade markuu xaqiiqi yahay madmadow ma galo laakiin goortu xaqiiqi noqonaya isweydiin dadka qaar kood iyagoo aan iskuursan bay raadinayaan jacaylka xaqiiqiga ah dadka qaar koodna jacaylka xaqiiqiga bilowga hore raadinayaan laakiin diraasa cilmiya xaqiiqiya diraasa cilmiya la xaqiijiyay jacaylka rasmiga xilliga uu imanaya waa 2 sano markay lamaanuhu ay isqabaan 2 sano markay wada joogtaan ka bacda hayay jacayl heer caalamiyeed galaysa أي الناس أحب إليك يا رسول الله رسولك الله يدك يا ذو قال عائشة وجعلها صحابي وكسر العيون رسولك الله يوم ما حاجة رجع سودا به دمار تبغى شعيل كرسم جاي اسمه بدلية قدم كلامات سحرين وأنا سنويدين كده حيو أديك يلا ما أنا أم حاس كأجا هالنقطة منك كأجا هالنقطة شعيل بوها كواري شعيل كسر حقيقي والشرط كحرنين قدم كلامات واحد هو التفاهم وين نسفهمه sidee baan isu fahmi karnaa halka u fiirsado seen isu fahmi karnaa xaaskaaga waa inaad ku taada xabiibti soo fadhiso haye waxaan kuu sheegayaa waxaan anigu u baahanahay waxaan doonayaa waxa inaad samayso waxa ay samayso haddaan kaa caroodo saxaabada qaar kood baa sida dumarkooda kula ballamay saxaabiyad baa intay iskuursadeen bay ku heshiiyeen haddii aan hebel oo caroodo aniga hay u qaynin ama waan aamusi ama noocaas يعني دقمada noocaas aad buu wanaagsan waa tafaahum ka sheegayno xaaskayga hadii aad aragto anigu caaraysan hayla hadlay horteeda ka dhaqaaq qolkaaga iska gal haddaan arko aniguna adigoo caaraysan hortaada ka dhaqaaqaya ku jawaabi maayo qolkaygan galaya saaseen ku heshiinina taana waxa la timid gurigaad soo gashay gabadhaadii ku xanaaqsan baad aragtay oo waxa weeye hadlayso oo doonaysa in aan burburto oo afka ka hadlaysa qunyar heshiiska ilaali qunyar halka ka bax qolkaaga gal dharkaaga iska bedel sarintaada ku jiifso sidoo kale ninkiisaas sameey damarka marka qaar kood waa maxay wax lagu heshiinayaa anigu haddaan caroodo waan qayliyaa waan hadlaa qayladeeda waxba ha u qaadanin inta aan kula hadlayna waxa ka codsanaya inaad iska kay dhageysato bas wax kala hay qabanin ما ركت أنا على سنة قيلنا ها إسكاكي دقيسو بس أكتر كرسي سواق هذا إسكافريسو مركا عندما يستكى بعدين إسكاكع دمر كنا تحسين وتعلي كون واحد تعيش هاي مركا أكو على سنة دقيستو سيدا وجد دراسة لسمية فيسبوك القرآن كاكو سوا قرية من دكتورة أو كنت تخصصي وحوي علاقات كزوجات كنت تخصصي
دراسات وودي 10 سنة كدواد وودي بوحو سو غادي boqolkiiba 83 waxa la 73 dumarku waxay ragooda kaga cabanayaan inama dhageystaan way ninku wax ma dhageysan karo dulqaad ma laha markuu arka sida gabadhiisa isu khilaafaan ba uu iska tagayo iska dhaqaaqaya gabadhii la hadlaysa inuu maqlaysid wacaynka gabadhii dabada markay weydi cid dhageysatay way ooyeysaa maxay ku cala burburaysaa oohin waa ta halka fadhista fadhiga inta fadhistay ooyeysaa hadaba aragtay marka waxa weeye al-insat buu baahan yahay qofkaas marka tafaahum la sameesto ina wax isku faahno waxa ka doonaya waxa ay sameeyay hadan iskhilaafno waxa ay sameeyay hadan iskhilaafno iscanaanan mayno ka sheekan mayno man huwa al-mukhti ya khaldan ka warrami mayno waxa weeye wax xun ka sheegi maayo inta min sameeyay laakiin waa isfahmayna isfaham barbaan qodobka saddexaad waa al-ihtiram gabadhay ninkaaga ihtiram ninow gabadhaada ihtiram sida awgeed marar badan waxa la boqolkiiba 90 dumarku ragooda ma ixtiraamaan boqolkiiba 90 raggu dumarkooda way ixtiraamaan macnaheedu waa maxay ninku gabadhiisa waxa aqbalaya siday tahay uu ku aqbalaya imika bal nin kasta waxa weydiisaa gabadhaada waxa jeceshahay markay make up marsato ee ay dhar qurux badan soo qaadato ee ay isudgoonayso ee ay sidan sameeyso ee sidan jecesh mise sideedaad ku jeceshahay wuxuu qoonay ma anigu sideedan ku doortay iyadoo diraceeda xiran karkaran baraw sideeda ugu jeclaa laakiin gabadha marka ninka weydiiso waxa ku leedahay waxaan jecelahay ninkaygu inuu style yeesho inuu dhar qurux badan xidho inuu waxa weeye markuu soconayo laga yaabo marka waxa weeye dharka uu xiran yahay uu ku soo baxo suul inuu xidho dharka wada qalawaysan oo cayn kana taa macnaheedu waxa weeye ninkaaga shakhsiyadiisa ixtiraam uma haysiyo shakhsiyadiisa iyo alaabaha kale lagu daray baa doonaysa marka ninkaaga inaad ku aqbasho taqabbalhu kama huwa siduu yahay ku aqbal waaniga hadda soo sheegay marka dad aan isu dhigmin ay iskuursadaan dhibaatooyinka dhowta imaada waxa kamid ah in ninka lagu canaanta dhaqamadiisa guriga goor hore ma timaadeen markii hore ba aynu sheekaysanay sooniyi habeenimada shaqeyn jiray ma ee gabadheedu waqti badan ma siiso oo caruurta kuma shaqeynta hay'adda isku waafaqeen caruurta waqti la siiyo oo caruurta la daryeelo maxaa gabadha taa ugu canaanaysa waxa isku ogeedeen ma ahayn يعني شيطانku maalinta waxa taagan buu ku buubuneem kaas wuxuu ku iloosinaya wanaagidii hore oo dhan qodobka afraad loo baahan yahay walaalayaal waxa weeye waa kalsoonida aan soo sheegnay waxa jira mumaarasad dhaqamo ilaa 4 ah oo dudumiya xiriirka lamaanayaasha ka dhaxeeya dumiya sidoo kale waxa jira 4 bayaan oo waa 8 dhaqan oo waxa weeye dudumiya jira sidoo kale waxa jira 10 shay oo jacaylka lamaanaha kor loogu soo qaado labada qodob waxa doonayna barita ka hadlo imika samaxay kala hadli doona asbaab mashaakil zawjiya sababaha keena mushkiladaha qoysaska dhexdooda ka taagan ka bacdina xalkooda barita raacinaya hadii ilaahay ka dhigo qodobka kuwada kana waa dambiga ilaahay subhanahu wa ta'ala hadii la caasiyo jacayl ma jirayo gurina ma jirayo hadii guriga heesaha lagu dhageysto munkaraadka lagu sameeyo maxaa badeecada lagu cabo ninku qaadka sigaarka guriga uu la yimaado waxa way xumaan noocyada kala duwan loo sameeyo dadka xun isla tagaa loo ogolaado guriga waxa weeye filmaanta xun lagu daawado yaani dhamaan waxa soo dhaadil sameeyo gurigaas ma si jira xiriirkaas ma si jiray qodobka labaad waa ihmaal inuu ninku gabadhiisa dayaco gabadha ninkeeda dayaco cidda ugu badan ee wax dayacdana waa gabadha weeye gabadha sanadka koowaad ugu horeeya yaani caruur lahayn ninkeeda ayaa u ah sayid iyada isaga ay mar walba koolkoolisa hadii ilmo yar uu ku soo kordho qol gaar ay tagaysaa furash gaar ay samaysanaysaa odayga sariirtii waa lagu cidlaynaa sariirtii 24 saacadood la wada jiifi jiray imika 24 saacadood keligii baa jiifa bal waxa laga yaabaa isagoo doonay inaanu helinba heblaay waxa caruurtii baan caano u qasaya bal way markaad u qastay kaalay waa caaniga soo qasa oo imika xagaad joogtaa kii yaraaban xafaayada ka bedelaya hayo markaad ka bedeshay kaalay ayo imika xagaad qabatay waa seexinaya warhaade meela gabadhi xaga qabatay ilmihiina la wareegay ihmaal ninkaaga inaad dayacdo sida awgeed dumarkuna markay ragooda dayacaan ninka muxuu sameeyay wuxuu isku mashquuliyo waxa laga saa nin reer leh oo labada habeenimo Facebook ku jira messengerka kala doodaya waariyaha ma xaas islaantada ma islaantii iska saxnayadii caruurtiyo waadu maxaa ka qabanaysa ma islaantii ordaan uma dhaweed baan miyo waa kana guriga iska jooga mobilku ku mashquulsan habeenkii oo dhan meelaha soo wareegaya war maxaad gurigaaga u qaban weyday
dee maxaa guriga ka doona islaantii labadii yarnaabe haysaayo waxa weeye dee guriga iska cidloo ku cidloonaya inaan meelaha aan soo warwareega marka waa ihmaal qodobka saddexaad waa maxay عدم الإحساس بالمسؤولية إن مسؤولية دي لدريم واي نيكون ودريم واي إن مسؤولية صارتها قبلنا يدريم واي إن مسؤولية صارتها قدم كاسو قدم استحاد قدم كأفراد تدخل الأقارب إلى قرابة من صور حق الشمر والبا إسلام هو إذا كنت مثلا نانكم حب السياء هي قرمو هي كي ماذا هي بيل كنتيبو كودي هي ولا الذي ما يكوي ماذا قرابة كرمي كوي ماذا سلام كرمي سمية وفرق المحون كذا بدل سيدا وقت دمرك يجا سو عدوه دراسات عن حقيقتني وي دمرك يجا سو عدوه يمكن قبل ما أقول من سك قبل كله سكون سو كله فردين كوي أنا ما كيلو وصو إن أراس كيلو قمر كيلو شهر رأس يلا قولي جيبها ها ومحو حاجة وكاجي بدلي واي فالمحيك فايدة إن هذا القاتل هذا ومحاكو تعالى سريتهم مدح كنول ما كو تعالى ها ومهند دي ما كده مسلم كنا متكلوا تركيا سعودية بتكوها هاي سنين قصاي نيني يشك يا ضيا وحلي يعني جو نيني قبردي سايسكور شدي نيني قبرد سايسكور شدي واسكو فرح سناين قري تشينجدي دقين قري تشينجدي على وقل وعلى وقله جود برسد با مالها قار كل غير هذا الله وقل نحن يسقفرن وعلى وقله هل الباب بولي هاي وعلى وقله تشينجدا نحدو وقفرنيه marka dhaxda qaybta ka furanay shishe waxa yaala sariirtii lagu seexanayay qaybtan sokana waa qaybtii dadka martida iyo waxa ay fadhiisanayeen deedna gurigu xagga hoose waa ciid mushamac baa u yaala marka mushamac la garanaya waan filaya mushamac baa u yaala guriguna waa jingad dusha sarana saliig baa jingada ka sokeeya waka daahiya dhinacyada ugu xiran guriga noocaas ay ku jiraan waan isku faraxsanayn subaxyada kamid ah xaajiga aanu shaqo tagin oo yara xanuustay deedna uu iska joogay dumar gabadhan ay saaxiib ahaayeen baa u yimideen soo booqday guri qolkiiba soo fadhiistay iska waran khayr oo kala walaal guriga haata dad jingad ku jirtaan maxaa xagga hoose isaga dhig weydeen muxuu ahaa sibir maxay isaga dhig weydeen xagga hoose maxaa ku dhahday oo daahiyada wuxuu kaaga bedel daahiyada oo kuwii duugay guriga hooyadii talo ka keenay kuwii berigii hore oo walaal saqafkan sare siliigana maxay isaga bedel weydeen isna uu duugoobe ninki waxa uu maqlayaa dumarkana ku akhrinayaan gabadhiisina waxa iska leedahay walaal insha Allah waa iska bedeli doonaa walaal waxay dareemaysaa yaxyax qajilaad yani marka aanu qofku aanu ku kalsooni aanu ku qabin waxa uu Ilaahay siiyay inta aad haysatay inaad kalsooni ku qabtaa la doonaa alxamdulillah waan haystaa inta saaniga igu filan inta tirada laga doonay ninkii waa ishayn waayay qolkii gudihiisu ka soo baxay isagoo sacab ciida gacanta ku sito dumarkii intuu caayay ciidii ku sareeyay noo baxa guriga يعني ما محي عدة كواد جريها الدميسة اسكت درتاي أو الشيطان كسواد يفدا وضمر وي لبكستو اسكت فرح سنة عدة كانت دشاي وضمر وي وأذكت إنه ننكشق يلا لبقف اسكت فرح سنة حتى هدوء إنه نكل توجي هاي وحكواني يا واحد مش هسا نكل مسكو خلاص اسكود إله أكو بركة إله وأركور نكل وسكفي عاي وحنا نوك موجي هذا الرجل ساسي وأنا لكن عدة كواد الدمرك جريها اسكت درتاي جريها الدميسة دمرك وي قضبك شنادة جرج الدمية وحوي الغيرة المذمومة وهناسة مرك قارقود بواحد هذا علماء العلاقة علاقات كورة ما واحد هذا ضدك استعاري بكلا هناسان لين ما هي مقالة سنة سهتها لكن هناسية له لكن هناسة الجديدة وكان محيا وكان دلانتها يا دقاقي يا بحي يا سوقلي جرج ولا جوريا يا وحوي عذر بقى جوريا وحبا يسوي شيء با وحاوي كل ديدية لكن غير ده هناسة صح ده أنا تجمعنا على حمان توديدو أنا تجمعنا على أسطورته والعورة ده إلى عشته ومركب بناك وبحثات إلى عشته أو وحوي النظام كده إلى عليسه إلى عشته مركب بناك وبحثوا جميع شيء أنا دبقش أتعمد بعدها يهرس صعوبة كنت بس عنا يعني أما ترى دبسعه ما لكن كل يرجع لسين الشباب كده أي إلى عليسه markay wadada marsan aan jajabin oo aan jirka marba qayb aan ruuxin markay rag la hadlaysan aan codadka jajabin yaani waxyaabaha noocaas ah la timaado qodobka lixaad oo waswaaska shaydaaninu ku waramo oo lagu waswaasiyo oo wax iska tusana wax ku hor carraan
وحاس وقلد وي وقلب كل حد قلب كتضبط التدخل فيما لا يعني إن القف كده شو حان معنا كوجود حتري قبل هذا الشندد إذا ما يكب كيري واحد سيقول جيران معناها نينو أتكفى إيه سينا فرطوات بعد بحيتها حكفى إيه سا يعني وحيا ما يعني أنا شيء التصمد من أحد الزوجين إلا وضع لما معناها يسخوين ومد كم يدو كلا كدرينها أو جواد ينك لا ضواد جنون إلا ذا نينك واحد جواد بيلو قرصنية محمد مغشى ما وان كدرهم سان تان كدرهم تسان تم الروب ما كدرهم يسوق روب سودا أيام waxa qaldan aad leedahay waxa saa qaldan ninkaaga toos ugu sheeg waxa xaaji waxa soo qaldan man dareemayaay balday iyo cilad saar dhibaataan dareemayaay cilad saar ninkuna waa inuu xaaskiisa u fahmaa qodobka sagaalaad waa suu dhanni malaha xun haddii xaaskaagu maalin quraacda ay ku sameyn weydo ama aad guriga timaado iyadoo qadadii aan samaynin isla markaana gurigii ka maqan malaha xun ku soo dhicinaha oran kow tolo yaa u yeedhay عدا باسه تولى iga gaxaysatay waayo tolo laakiin waynaad wax wanaagsan ka fikirtaa tolo ma bihid baa la soo hadlay mooyadad baa la soo hadashay ma cid baa tolo xanuunsatay wallahi wayna ka war doonaa wayna magaran sawka hadii wax aad uga barato qofkii lagu sameeyay waayo waynaad malaha hagaagsan suu dhanniga iska malaha xun iska ilaali qodobka tobnaadi wa adam tawaafuq an-nafsi wa suu fahmi kulli min az-zawjayn li tabaa' al-akhar illa istabi'at fahmi waayo بران كهذي دوران طبعاً كشيء شعير كلو كرديو لو يعني طبعاً كشيء شعير كإلالية يصير طبعاً كلا أنتوا دانو شعير شرينني وحكم ذا قف كريم ضل عدي سفهمه عدة وقوع عاصم فهم كاسي كلا ياكو واحد أو بكر الصديق واحد بران كورم دوران وقت قاعد عيه قضب كوي تمام ضاع الاعتقادات الفاسية وحياها قلدنا وقفك وآمن سنياي قضب كلا يطبنات وحويه الأفلام الخليعة والمجلات الساقطة في المدح حن يا فيلمات حن تعاونيو وقيب كيهين قلب كافر تمنات وعدم الصراحة والصدق إن كنت لسه شيء واحد كنت ما هنا قفك داوعدو بران كورن دونا كنت يا وحي تاي داوعيد قفك هنا داوعين بلدوني هذا تاي waxa weeye xaaskeygi wallahi waad fiicantay laakiin waxoogaa caqligaad ka yara hooseysa هذا ورنتي وهذه اللي لو درينا أفرت هي جروا يا كلها واشن من كل شيء من العقل جابه هو سيء يعني حيوان سكر هو محي دين عقفك هنا والله الروم من شيء يدور رنتي والله ودري كبر يروح يتراضى واشن من عقل جك والله مرجع سكر وحبوب وحيالين يعني معها وحشي جد معها تأثير الجيران إن ساميان جيران وجواد الدمر كجواد هذا الدمر كدرس كوسو ليسته نكاله حالة إنك ويمسدي بكون تبان كابين معها وشوكي معها حالة سديد دي وأجن مرمرية سري يقف كلا السعودية ترى مجبر بها مستنين بقف مرمى ذو حرم بها السعودية يعني شيران كلمة سقيب وكان غنى حرير كان جورج كتيرة يبربر كيس اللي باتي سقيب وكان غنى عدم القناعة إنه قف قناع سنوات بالأمور المادية واحد قارئ هيستان بيلك واحد قاتل لو $1 لو $1 قناع سنوات الحمد لله اللهم فزيد قضم كتضبيط تمنا فارق الطبقة الاجتماعية إن طبقة اجتماعية وفرق ودحيو قبلنا كنا طبقات سرع نكون طبقات هوسو ديرده داوها إنه كوض أو بنشر يعني هذا قالي تاير كيسو بنشر داوه كوض قبلنا طبقات سرع كسو كيدا marka waxa weeye waxyaabaha keenayeen mushkiladaha gurigu reerku uu jiraayo kamid فارق التعليم فرق weyn u dhaxeeyo waxbarashadooda oo ninkuna uu heer jaamacadeed u gaaray gabadhan imka miiga laga keenay oo reerkooda siiyeen ama xaal ba loo siiyay faariq sin daadeen kala weyn yihiin ninkuna inuu 70 jir yahay oo inantii dhalinyarada ayada 20 jirkeeda waxa weeye ciyaar doonaysay in la faraka ciyaareen la qoslo loo sheekeeyo odayga marba iska anigu nin weyn baan ahay waxaan ku oran lahaa de nin weyn inaad tahay u baahan faariq sin loo baana الجلسات المختلطة وفردية الاسكو دح درسمين يعني نينكي إنه يروى غيره قبلنا غيره يرويده أو نينكو وقلاده قبل سنة فيلمانيو رجع إلى صوت أو كلي المادير ده قبل راعي لو إن المادير نهوا إن أنت لصعوده إلى عشان تهيبو كلي المادير ده مركي إلى علنا قبل هذا محيي ما رجع هنا يو تفضيل بعض الأولاد على بعض عروته إلى كفضله سامين بكياشا يعني إن أبوهنا الله عروته كم ذا ولا هذا الله وده وصل ريان أنا وجعله إسلام وتأصدق هذا يرير أنا يجوه الله
xiriirka mushkiladaha guriga waxyaabaha keena kamid tahay waxyaabaha keena waxa kamid ah waa 22 marayay عدم العدل بين الزوجات دور حاصل هذا هنا العدالة السماوية قدم قصة حين لواتنات كثرة خروج المرأة من المنزل كمان هنا مروا بيقول لك نا حاجات كسعتها ولا لا فهي صاحبة دي بقى الله روستي صاحبة دي بقى مهر صدي صاحبة دي بقى حنصونيسا صاحبة دي بقى صفر قلي سواء بعد ودين صاحبة دي بقى الموضوع الشافر تنبحي ذيك قيب قلي صاحبة دي بقى سدية تنبحيسا صاحبة دي بقى الشواب ما سوسني سني وحبرشان آدي وحوي سوقا ومتبحسين يعاقها اسكاي قلي يعني كبحيدة فراها بأنك قبل قرقة كبحثانا وبابيا وحوي مشكلة ذا هناك واحد كانوا كم جاء كثرة السهر خارج المنزل قرقة أقول له بناك أقول له قصة من ليله وأنا قرقة دحي ساهين دقن كاسوحا يسترجع وحنا قارنا نقول ترمى لها انت نين الرير لي أنا قارنه هبين كستلا بيه تمنكي كوي تمنكي هبين وقريه هذا تاع marka qaar kood ijtimaacaadka kulamada marka soo nimaadnaa ragaas ku warrama koonaya waanu maana gurigeyga 12 xil soo maana tagaba marka way yahay 12 marka tagto goormaad gabadhaadi xaaska ay goormaad waqti la qaadanayso caruurtaadi imsa caruur aad leeyahay 5 caruur aad leeyahay goormaad 5 caruur waqti la qaadanayso marka imsa 12 kaano iyagu wada hurda furaa leeyahay albaabka dushan iska furaayo qolkaygan hore ka gala subaxina waa ka soo jarmaaday oo kaliya duhurkiina ma tagaba guriga bal ninkaas guriga muxuu ka qabtaa ilaahay ku dhaariyay ma bariis buu doontaa ma furaash baa kaga lumay ma go baa xaafadoodii laga soo qaaday halkan taagan go-aagi baa halkan yaalo orado aad bal wuxuu guriga ka qabtay idinku ii sheeg qodobka 25aad as-safar ila al-kharij la aghrad sayyi'a in safar la galo iyadoo uu jeedooyin xun loo baxayo baadhi ma soo dhiganayaa iyo maxaan ku raadayay waxa ka qayb galaya mashaariic kale ka qayb galaya iyo mawaadiicda noocaas يعني waxa weeye wanaagsanin 25 qodob waa asbaab المشاكل الزوجيه bari waxa ka hadli doona waxyaabo kamid ah waxyaabaha sida lagu xalinayo waxaan ka hadli doona hadii ilaahay ka dhigo asaaliib iyo dhaqamo baabiya mumaarasat tudamir العلاقات baabisa waxaan ka hadli doona hadii ilaahay ka dhigo simaadka looga baahan yahay zawjka wanaagsan ninka wanaagsan ama xaaska wanaagsan 10 shay oo jacaylka kor u qaada baan ka hadli doona fanniga tacaamulka iyo isfahanka iyo muhiimada uu leeyahay arrimo badan oo noocaas ka hadli doona hadii ilaahay ka dhigo intaas ayaan ku koobaya waxaan jeclaan lahaa asxaabta inay muuqaalka u sii share gareeyaan asxaabtooda kale page-kana ay ku xidhnaadaan sidoo kale asxaabtooda ay ku casuumaan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk